waxay kala soo hadlayaa xarunta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho ee shaqada aan bilownay saaka markii saacada ku bagneed 12 subaxnimo gabi ahaanba hadda waxaa la soo xiray odaynta degmada Waaberi oo ay halka ku ciidanayeen muwaadiniinta Soomaaliyeed kuwaas oo ka qayb qaadanayay doorashooyinka dowladda deegaanka waxay ka dambeeyay waa sanadiiqda rasmiga ah loo soo xiray kuwaasi oo ay muwaadiniinta codka ka dhibanayeen degmada Waaberi waxay ka diiwaangelisay 25,072 muwaadiniin Soomaaliyeed ah waxaana kaarag qaadatay 10,205 kuwaasi oo ka qayb qaadanaya baalka dahabka ah oo ay taariikhda Muqdisho sameynayso doorashadan looma codeynaynin dabcan shakhsiyaad waa doorashada ururada ku farsameeyaan Waaberi waxaa yaala 22 kursi waxaana ka loolamaya 100 musharax oo qayb ka ah 20 oo saasidee u diiwaangashan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suudimaha hadda gabi ahaanba codeynta waa la soo xiray waxaana aan ka wajin doonaa natiijada ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashooyinka anigu waxaan ahay Cabdirashiid